bismillaahi araxmaani araxiim. dhacdadii dagaalkii la foole ee dhex maray soomaalida iyo talyaaniga 25 Novembar sanadkii 1896 qaybta labaad. dadka Soomaaliyeed waxay degan dalka Afrika jacalkiisa bari. qaybtii koowaad waxaan kaga soo hadalnay xaalka uu ku sugnaa gobolka banaadir iyo sida loo kala deganaa. qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa taariikhda gumaysiga talyaaniga iyo danaha uu ka lahaa Soomaaliya iyo wixii kala qabsaday iyaga iyo Soomaalidii deganeyd banaadir, gaar ahaan Marka iyo Warsheekh. bilihii ugu horreeyey sanadkii 1892 ayaa waxaa lasoo diray markabka Estafeta uu taliye ka ahaa Giorgio Sorrentino. isaga oo warqad ka wata suldaanka Zanzibar ayuu ka degay, si fiicanna loogu soo dhoweeyey magaalada Baraawe, Marka, Muqdisho, Hobyo iyo Caluula. ma ahayn arrinkaas in talyaanigu dhulka qabsaday laakiin waxay ahayd maxmiyad uu talyaanigu dusha ka ilaalinayo, taa oo ku timid heshiis uu la soo saxiixday suldaanka Zanzibar iyo ogolaanshaha hogaamiyaasha dadka deegaanka. heshiiska xilwareejin ee maamulka Baraawe, Marka, Muqdisho iyo Warsheekh oo ahaa in uu talyaanigu kiraysto banaadir muddo 25 sano ah oo la cusboonaysiin karo 25 sano kale, lacag dhan 160,000 oo rubiyadood sanadkiiba. dhulka ay kiraysteen waxa uu ahaa magaalooyinka aan hore usoo sheegnay ilaa iyo 16 kilomitir oo isku wareeg ah, marka laga reebo magaalada Warsheekh kaa oo ahaa 8 kilomitir oo isku wareeg ah. ogow, qiyaasahaas waxay muhiim u yihiin mowduuca aan halkan kaga hadlayno. dowladda talyaanigu waxay qandaraas hoose ku siisay sharikadda Filonardi muddo 3 sano ah, taas oo ka dhisnayd Zanzibar ilaa iyo sanadkii 1884. waxaana dhisay ganacsade reer Rooma ah oo lagu magacaabi jiray Vincenzo Filonardi, kaas oo aad u jeclaa inuu gacanta usoo galo maamulka gobolka banaadir kadib markay shirikadda u celisay dowladda lacagtii ay siisay suldaanka. haddaba waxaa xusid mudan in Soomaaliya aan si sax ah loo gumaysanin ilaa iyo waqtigaa, sababtuna waxay ahayd inaan loo qabsanin ciidan ahaan ama maamul ahaan. sanadkii 1893 ilaa iyo 1896 joogitaanka talyaanigu waxa uu ku ekaa xero yar oo askar carabihii joogto oo ku tiil Luuq oo ku taal webiga Jubbada Sare, iyo xoogaa ganacsato ah oo xeebta banaadir ku sugnaa. saldhigga talyaaniga ee Luuq waxaa la aasaasay sanadkii 1895 si ay u ururiyaan xogta ganacsiga Soomaalida ee gobolka iyo ilaalinta danaha talyaaniga ee ku aadanaa sheegashada Itoobiya ee deegaanka. joogitaanka aan wax ku oolka ahayn ee talyaaniga ee banaadir oo ku koobnaa dana ganacsi si dhab ah looguma magacaabi karo gumaysi. waxaa deganaa banaadir talyaani aan badnayn, waxaana joogay askar carab ah oo aan ka soo bixin xeryahooda. xaaladan awgeed kooxaha Soomaalida intooda badan kuma soo dhicin in ay ka dagaalamaan gelitaankan hore, maadaama ujeedada talyaanigu aysan caddayn. waxaa dhici karta shirikadda Filonardi oo ay faragelinteeda arrimaha Soomaalida aad u koobnayd awgeed, wax colaad ah oo dhex maray Soomaalida iyo talyaaniga waxaa dhacay dhowr dhacdo oo xusid mudan intii u dhexaysay sanadkii 1893 ilaa iyo 1896 iyo weliba ka hor. waxaana ka mid ahaa markii markabka Volta oo cadan joogay la faray in uu dib ugu laabto gobolka banaadir si uu uga dhex taago calanka talyaaniga dhulka Biyamaal, oo ahaa dad ay ku weyn tahay la dagaalanka iyo colaadinta shisheeyaha. balse Warsheekh oo ku taal waqooyiga Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay fal colaadeed oo halis ah. 24 bishii Abriil sanadkii 1890 dooni ayaa dib loogu celiyey markabka Volta, taas oo ay saarnaayeen ku-xigeenka labaad ee markabka Carlos Valli iyo nin badmaax ahaa oo uu magaciisu ahaa Angelo Portolucci iyo nin turjubaan ahaa, kuwaas oo xeebta u aaday si ay ula kulmaan hogaamiyaasha deegaanka uguna martiqaadaan markabka dushiisa si ay usoo qaataan hadiyado. dhowr tallaabo oo xeebta ah kadib waxaa kooxda si lama filaan ah u weeraray dad hubaysan oo dadka deegaanka ah. dibna waxay ugu celiyeen markabkoodii, laakiinse Carlos Valli wuu dhaawacmay, halbowlaha dhuunta ayaana waran lagala helay.
sidoo kale badmaax Angelo Bortolucci ayaa isagana si xun ugu dhaawacmay rasaas, mana sii noolayn wax ka badan hal maalin. kabtanka markabka Volta, kabtan Giuseppe Amari, wuxuu amar ku bixiyey in la duqeeyo Warsheekh, laakiin natiijooyin fiican way ka gaari waayeen. si kastaba ha ahaatee, dowladda talyaaniga oo uu markaa hogaaminayay Francisco Crispi, oo caan ku ahaa in ay ku weyn tahay siyaasadda gumaysiga, dhacdadan ma niyad jabinin, wuxuuna sii waday raadinta saldhig xeebta ah. wuxuuna ishaartay Cadale oo lahayd 2 xeeb oo ay maraakiibtu ku soo xiran karaan, qiyaastii 150 kilomitir waqooyi bari Muqdisho, oo sidoo kale dhowr iyo 10 kilomitir u jirtay Warsheekh. Filonardi, qunsulkii hore ee Zanzibar, ayaa la wareegay bishii Maarso 14keedii 1891. magaca magaalada Cadale ayaa Talyaanigu yara qalloociyey, waxayna u bixiyeen Itala, bacdamaa magaca Cadale iyo Italo isu dhawaaq dhawaayeen. waxa kale oo dhacay xero yar oo laga dhisay Cadale oo ay joogeen 50 askari oo Carab ah, ayaa caqiidkii joogay wuxuu ku talo xumaystay inuu xiro 3 ka mid ah madaxda dadka deegaanka. 8 maalmood kadib, 25 Maajo, abbaarihii 3 habeennimo, oo uusan dayax jirin, roobabna da'ayaan, ayaa la weeraray xerada. weerarkaa wuxuu ahaa mid halis ah, haddaysan ahayn 30 ka mid ah askarta oo markaa xerada ilaalo uga maqnaa ay dhabarjibin ku samayn Soomaalida marka ay maqleen qaylada dagaal. Carabta waxaa halkaa kaga dhintay ilaa iyo 6, Soomaalidana waxaa kaga shahiiday dad badan. marka ay tahay magaalada Marka maalinta ay taariikhdu ahayd 11 bishii Oktoobar sanadkii 1893, maalintii ugu horreysay calanka Talyaaniga laga taagay qalcadda Talyaaniga ee magaalada Marka, nin Soomaali ah oo qiiraysan oo ka tirsan qabiilka Biyamaal ayaa weeraray oo dilay sarkaal Talyaani ah, kaas oo ahaa ku-xigeenka taliyaha markabka Stafeto Maurizio Talmone, oo ahaa nin ay Talyaanigu ku gacal waayeen. 29 jirka dhallinyarada ah wuxuu ahaa wiil u dhalay nin ka mid ah warshadleyda Torino. haddaan in yar ka hadalno shakhsiyadda Maurizio Talmone, waxa uu ka soo qalinjabiyey akademiyadda badda ee Livorno, halkaa oo uu ragga wax la bartay ay ka mid ahaayeen Duca della Abruzzi, oo ahaa ninka dhisay warshadda sonkorta ee Jowhar. kadib waxa uu ku biiray ciidanka badda ee boqortooyada Talyaaniga, waxa uuna ka shaqaynayay markabka Royal Relay ee ka howlgelayay badda Cas, gacanka Cadmeed iyo badweynta Hindiya. magaalada Marka oo ku taal koonfurta Muqdisho waxaa 2 sano ka hor heshiis ku kala saxiixday imaamka saldanadda Muqdisho, Imaam Maxamuud Suldaan Cusmaanka Galladi, iyo dowladda Talyaaniga, waxaana Banaadir ay noqotay maxmiyad Talyaani. taas ma ahayn markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed uu noqdo maxmiyad Talyaani. waxaa uga horreeyey saldanadda Hobyo, halkaasoo sanadkii 1888 uu wafdi ka socdo Suldaan Cali Yuusuf uu kula kulmay Zanzibar, kulana heshiiyey in saldanadda Hobyo ay noqoto maxmiyad Talyaani. sidaana buuggiisa waxaa ku qoray Robert L. Hess sanadkii 1966, bogga 24 iyo 25. sanadkii 1889 oo ahaa sanadkii xigay, Talyaanigu wuxuu ka abuuray maxmiyad gobolka Waqooyi Bari. sarkaalka lagu dilay magaalada Marka waxaa looga dhuftay toorey garabka bidix, sida uu qoray taariikhyahanka ciidanka badda ee Talyaaniga Signor Sheshi sanadkii 1940. Soomaaligii dhibta geystayna isla markiiba waxaa dilay 2 ka mid ah askarta. isla markiiba sarkaalka dhaawaca ahaa waxaa loo qaaday dhanka markabka Stafeta. walow uu daryeel caafimaad oo degdeg ah u fidiyey dhakhtarka markabka, haddana wuxuu isla fiidnimadii u geeriyooday dhaawacii soo gaaray, taas oo niyad jab weyn ku noqotay dhammaan shaqaalihii markabka. taliya Eduardo Incoronato, iyada oo ay ujeedadiisu tahay in meydka sarkaalka lagu aaso dhulka Talyaanigu haysto, wuxuu markabka u qaaday dhanka Itala oo ahayd magaalada Cadale, halkaasoo meydka lagu maamuusay maalintii xigtay. Filonardi oo ahaa madaxa shirkadda Filonardi wuxuu adeegsaday fal aan waafaqsanayn dhaqanka iyo caqliga suuban, kaas oo ahaa inuu gacanta ka jaray meydkii ninkii Soomaaliga ahaa ee dilay sarkaalka, isagoo ugu yeeray falka foosha xun inuu waafaqsan yahay ciqaabta diinta Islaamka. kadibna waaligii Marka ayuu bedelay. dadka degaankana waxaa hubka dhigis ku sameeyey shaqaalaha markabka Stafeta. kadib waxaa la soo qabqabtay madaxdii ugu saameynta badnayd magaalada, isaga oo rumaysnaa in gacanku dhiiglaha iyaga ay adeegsadeen
markay u dulqaadan waayeen joogitaanka reer yurub. waxaa la go-aamiyey in la duqeeyo magaalada marka si cashar loo siiyo dadka deegaanka iyo madaxdooda. 15kii bisha markabka oo ku xirnaa meel qiyaastii 800 oo mitir u jirta magaalada marka bilaabay in uu duqeeyo magaalada marka iyo tuulooyinka kale ee ku firiirsan buuraha ku teedsan magaalada. burbur aad u ballaaran ayaa loo geystay magaalada, gaar ahaan tuulooyinka ay degan yihiin Biyamaal oo qiyaastii 3 kilomitir u jiray markabka. aqalada magaalada marka ayaa si weyn u burburay. waxa kale oo burburay guryo badan oo dhagax ahaa. darbigii magaalada ku xeernaana waxaa soo gaaray burbur aad u ballaaran. waxaana magaalada lagu riday 157 madfac oo ka dhacayay madaafiicda cabirkoodu kala ahaa 120 milimitir iyo 57 milimitir. dhimashada inta la hubiyey waxay ahayd 21 qof, laakiin waxa uusan shaki ku jirin in dhimashadu intaa aad uga badan tahay. sida uu Talyaanigu ka marakacay, sababtu waxay ahayd Soomaalida oo ahaa dad aad isula weyn oo marnaba aan ogolaan karin in laga guulaystay, oo geesinimo aad ahna leh. waxayna qariyeen meydadkii ku dhintay duqaynta. sida taliyaha istaafeeta lafahantiisu u qeexay, kabtanka markabka Eduardo Incoronato waxa uu yidhi, waxay qariyeen meydadka si aysan u ogolaanin khasaare iyo guuldarro. isaga oo aad ula dhacsan Incoronato waxa uu xusay in 2 bam oo aan qarxin maalintii xigtay ay ku qarxeen dadka deegaanka oo isku dayay inay dhaqaajiyaan. marka la weydiiyey tirada dhimashada ay sababeen 2 qarax, waxay si isla weynin uu ka muuqdo u bixiyeen jawaab la yaab leh oo ahayd qofna. Eduardo Incoronato waxa kale uu sheegay, isaga oo ka hadlaya Soomaalida, Soomaalidu ma aha dad la rabaayeyn karo. waxay qabaan caajisnimo ay u dhasheen, waxayna door bidaan inay ku noolaadaan dagaal iyo inay wax dhacaan. tobaneeyo hogaamiyaal Soomaali ah oo qirtay, sida Talyaanigu sheegay, inay maleegayeen shirqool ay ku hor istaagayaan imaatinka Talyaaniga ayaa la xiray. duqaynta marka xaqiiqadii xaalka ma dejinin. taliye Incoronato waxa uu ogaa in gacan ku dhiiglaha uusan deganayn magaalada, taas oo caddaynaysa in duqaynta ay ahayd mid aan cadaalad ahayn iyo argoosi aan macquul ahayn. duqaynta marka waxay keentay cawaaqib aan lagu talagelin. qabiilka Biyamaal waxa uu joojiyey wax alla wixii xiriir ganacsi ahaa oo uu la lahaa magaalada iyo badeecooyinkii uu keeni jiray, taas oo sababtay cunto yaraan iyo sicir barar. Filonardina waxa uu ku qasbanaaday inuu galley usoo diro marka si magaalada looga badbaadiyo macaluul. magaaladu waxay sii ahayd meel ay shirkadda Filonardi kala kulanto dhibaatooyin xoog leh. Vincenzo Filonardi waxaa ku dhacay xanuun dhanka caloosha ah, xumad iyo cudurka cagaarshowga. markay arrimahaas dhacayaan, aad ayuuna uga xumaaday falalka, sida uu ku sheegay warbixintiisii ku saabsanayd dhacdada. sidoo kale warshiiq markabka Riley waxaa lagala horyimid cadaawad. qof Soomaali ah ayaa isku dayay inuu dhaawaco askari, wayna ku bannaan baxeen iyaga oo ku qayliyayay erayo ka dhan ah Talyaaniga. beeralaydii magaalada hareeraheeda deganaa ee cuntada keeni jiray way ku dhiiran waayeen inay magaalada u soo dhowaadaan, xiisada ka taagan degaanka darteed oo ahayd mid aad u sarreysa. sannadkii 1895tii meydka sarkaalka dib ayaa loo soo saaray markay qoyskiisa sidaa codsadeen, waxaana loo qaaday Itaaliya, waxaana dib loogu aasay qabuuraha evangelicalka ee magaalada Torino oo ahayd magaaladii uu ku dhashay. waxaana halkaa ku sugayey Duca della Abruzzi oo ahaa ninkan hore usoo sheegnay ee dhisay warshada sonkorta ee Jowhar. intaana waxaa noogu dhammaaday qaybtii 2 ee dagaalkii La Foole. qaybta 3aadna kala soco isla halkan oo ah rugta hiddaha. inay dowladku san maraan